السلام عليكم أصحابتي قالقة ويلكم باك soo dhawaada channelkayga hadaa channelkayga cusubna subscribe saar soo asxaabta maanta waxaan sameynaya buskud ciid sidaan u sameynaya nidisna daawasho wacan hadda baaquliga waxaan ku shubay 3 xabo ukun kadibna waxaan ku daraa 2 bakeeri oo sokor kiilo buskud ayaan sameynaya marka 3 xabo ukun 2 bakeeri oo sokor ayaan ku daray and then waxaan ku daraa 1 bakeeri oo caano kadibna hadda waxaan ku garaacayaa mashiinka oo doorshada lagu garaaco soo kaas ayaan isticmaalayaa si sokorta dhaqsi igu dhilaalo marka adiga haysan laazim ah gacantaada ayaa ku qasi kartaa ilaa sokorta ka dhilaalo sokorta markuu dhilaalana diyaar waa insha Allah sidaas la socdo asxaabta hadda waxaan ku darayaa 1 bakeeri oo saliid waa ka 1 bakeeri saliid ayaan ku daray kadibna haddana mashiinka ayaan ku garaacayaa marka hadda sokorteen waa dhilaal asxaabta waxaan ku darayaa 1 qaado oo kaadisooy kaadisooga buskud lagu darayaan ku daray 1 qaado kadibna waxaan ku darayaa 1 qaado yar oo baking soda caagaas aan isticmaalaa baking soda ku jiro and then si fiican isku qas insha Allah kadibna hadda waxaan ku darayaa 1 qaado yar oo vanilahan aan isticmaalaa waa midka sokorta oo kale kaas aan isticmaalaa 1 qaado yar ayaan ku darayaa waa ku daray vanilaha 1 qaado ayaan ku daray kadibna diyaar waaye hadda waxaan ku dareynaa kiilo bur maanta waxaan sameynayaa kiilo bur marka cabirka aan sameeyay maanta waa kiilo bur cabirkiisi soo hadda kiilo bur ayaan ku daray kadibna waan si cajimayaa tartiib u cajin si xoog u cajimin soft u cajin marka waa ka asxaabta sidan cajimayaa fiirsada waa si wadaaya waan si cajimayaa tartiib ku cajin xoog u cajimin waa arkaysid ma sha Allah sidaas ayaa la rabaa jileec waaye marka ka walwali marka aragtid saan jileec markuu yahay inta ka sameynaysid oo adkaanaya burka marka doon woriyada aragtid jilacsan yahay biyo ma aha marka aad sameynaysid hadda waa arkaysiin wax yar kadib ayaan sameynaa burka si uu adkaado waa arkaysiin marka sidaas waaye buskudka insha Allah saas u fiirsan marka makiinadaan aan isticmaalayaa makiinaha oo hilibka lagu shiido waaye makiinadaas aan isticmaalaa inaa buskudka aan ku sameeyo then waa kay sidaas aad sameynaysaa afka horena marka aad jaraysid gacantaada bur mari hadda gacantaada bur marsaneen inuu ku dhigdhigayo marka insha Allah faraha bur iska mari and then sidaas u gooy and then buskudkaaga saas ayuu ku noqonaa insha Allah asxaabta sidaan u fiirsada marka oo faraha saas aan ugu gooyo kadibna mindi ayaan ku jimeynayaa waa kay liisha ayaan ka dhigaa mindiga afka hore sidaas ugu jir soo calaamaha dhan liisha ayuu noqonayaa waa kay asxaabta sidaas waa buskudka marka insha Allah fiirsada dhamaan sidaan u sameynayo intaan waan tusinaa insha Allah sidii ayaa ku wadaysaa mar walbaba wax yariis mindiga afka hore saas ugu jir and then your biscuit saan ayuu ku noqonaa marka asxaabta waa kay buskudka waan sameeyay diyaar waa kay sidaas oo arkaysiin cabirka ma sha Allah si rabtaa ka dhigi kartaa cabirka hada zaa'id u dheer rabtid hadana gaagaab qiyaas rabtid sida aad jeceshahay ka dhig insha Allah buskudka sidaan ayuu ku qurux yahay cabirkan marka laga dhigo soo sidaan la ka dhig insha Allah marka foornaha ayaan gelinayaa 180 ayaan ku dubayaa insha Allah waa kay buskudkeena asxaabta diyaar waaye 180 ayaan ku dubay 180 ilaa 20 ilaa 25 daqiiqo ayaa foornaha ku jiri kadibna waa kay buskudkeena sidaas ayuu ku soo baxay diyaar waaye waa kay asxaabta waa arkaysiin hal kalar waaye kuli
insha Allah dhinaca kalena waan ii tusinayaa siduu noqday waa arkaysiin dhinaca kalena sidaas ayuu noqday maasha Allah waa isku color ayuu noqday soo sidaas ayaa fiican buskudka asxaabta insha Allah I hope inaad tijaabisiin recipe-gan ciida oo buskudka aan sameeyay marka asxaabta if you like this recipe thumbs up like and share dheh si walaalaha kale u arkaan ay ka faa'iidaan ula share garee walaalahaaga and familkaaga soo asxaabta waa buskudkeena maasha Allah buskudka ciida sidaas ayuu noqday saas waay marka insha Allah so the channel ku xasibtid don't forget to subscribe insha Allah so asxaabta next video ismaqli doonaa dhamaantiin khayr badan aan dhaafay as always daawadiga xasuusta mar walba daxaysanaysiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh